talada waa wada leenahay annagu haddaanu nahay gobolada Soomaaliya sanaag dhaqanka ka soo jeedana xaajada annaga la wareegnay annagoo kaga wakiila salaadiintii inta dhammaan Puntland nabadgelyadu waxay tahay iyo noloshu waxay tahay garaadkuna warbixin dheer buu bixiyay aniguna ku dheeraan maayo oo waxa weeye nabaddu waxay tahay waynu garanaynaa Garowe waa caasimadii Puntland weeye ama ummadda Soomaaliyeed caasimadeeda ay ka mid tahay waxay halka ku soo gaadhayna waa ismaqal iyo kala dambeyn dadkuna markay ismaqlaan oo kala dambeeyaan ummaduna waxbay u garataa oo wixii marka ay soo gudbistaan waa loo gartaa ciyaar kuma imaan gobolada kale kama fiicnayn kama wanaagsaneyn Garowe waynu garanaynaa laakiin kala dambeynta iyo nabadgelyada iyo ixtiraamka dadka reer Garowe ay ummadda kale u hayaan bay ku timi in la isla qaato in ay noqoto madaxii gobolada taa horta inaad ogaataan baa loo baahan yahay waana idinka muuqataa xanafta yar ee soo korodhay annagu markaanu habeen saddexaad nimi waanu doonayna subaxii inaanu noqonno ayaa habeennimadii wax dhacay Soomaaliduna waxay tahay raqba waa ku rageedi haddii aanu shirnayna waxaanu u aragnay ama ay tahay inaan hawsha annagu aanu leenahay maalinba waxa weeye awr baa dhaamiya haddii hadda meesha aynu joogno ay wax ka dhacaan inta hadda joogta bay mas'uuliyadu saaranta nin kale oo banaanka jooga ma saarna hebel ha loo doono looran ma inta la joogta horta xalka gaadheen habeenka annaga ayaa magaalada u soo hoyanay wax dhaqana waxa weeye markuu dib ku dhacayna Soomaalidu waxay tahay oo ab ka dhowey waxa weeye ardaaga Ciise Maxamuud ama qoyska ballaaran Ciise Maxamuud waxa weeye iyo xukuumadda xoogaag yaraaye dhex maray ee siyaasadda ahaa waxa weeye subaxii markaan idinku nimi si wanaagsan oo gobonimo leh oo sharaf leh oo qiimo badan ilaa raggii odayaasha ahaa ee wax tabanayay ee siyaasadda iyagu ku hadlayay ayaad waxa weeye noo maqasheen haddii aynu go'aan kala qaadanayna waad noo sheegteen waxa meesha ku jirana waxay nala noqotay inaanu darafkii kalena aragno annagu markaanu qardho aadaynay wax kale oo maanaan aadin inaanu arrinkan aanu gacanta ku dhigno oo annagu aanu leenahay cid naga leeyahay ma jirto cid aanu daba fadhinaana ma jirto cid aanu marti ugu nahayna ma jirto waxa weeye madaxweynaha waa u tagnay isagoo waliba safaraanu qardho habeen hore ugu tagnay wixii la doono hal la qoro annagu hadda waa yaarag baanu nahayo committee iyo qof waliba sidoo doono ha u dhigo laakiin danta iyo xaajadanu meesha u tagnay marinkeeda ahaa in aanu tulkayo wixii dhaxdiisa ku jira aanu macaasha qabanno madaxweynuhuna shakhsi kamida waxa weeye kursiga ku fadhiya dadkii uu ka mid yahay taladana ma diidi karo wixii aad noo dirteen sida garaadku sheegay golaha deegaanka iyo dawladaha hoose markii horeba consensus lagama qabino arrin wuxuu ahaa dadku ay doonayeen laakiin arrinka January iyo xaaladaha ka dambeeya madaxweynuhu waxaanu isla soo qaadanay idinkuna hadda aad media u soo fadhiisateen waa doonaysaa inaad daliya dibad gaarsiisaan ana aanu riwaabo ogol ah inta la isugu yimaado taasna waa qaatay mana dhaafi karo waxa weeye talada waa wada leenahay annagu haddaanu nahay gobolada Soomaaliya sanaag dhaqanka ka soo jeedana xaajada annaga la wareegnay annagoo kaga wakiila salaadiintii inta dhammaan Puntland waxa weeye rag badan baanu ismaqalno dhaqanka waa kamid ah waxa weeye hawshaas waa isla qaadanay marka golaha deegaanku inaga dhamaado waxaynu u gudbaynaa taladii labaad oo aynu waxa weeye nolosheena iyo deegaankeena iyo dadkeena aynu ku badbaadin lahayn nin ka dheer iyo nin ka boodi karaana ma jiro madaxweynuhuna waa nala qaatay guddigana waxa weeye hadeer baha maqleen idinkana waxa la idinka doonaya in waxa weeye warkaasi de media waa laga dhageysanaya aan wax dambe oo qayla ah iyo wax dambe oo buuqa iyo wax dambe oo dhibaato ayna dhicin waanu ognahay shalay subax saaka habeen hore rasaas baa dhacday niman mas'uuliyiin baa lagu riday si kastaba ha u dhacdo in ciidamadana magaalada laga saaro amnigana aad ilaalisaan inta horta isla qaadanayna taasaan waxa weeye horta isla qaadanayna ragga siyaasiyiinta ahaa ee siyaasadda doonaya kursigeena ku fadhiistaana hadeer baa hay maqleen idinkuna gaarsiiya
hawsha annaga la wareegnay annagay gacanteeda ku jirtaa hawshaasi markay dhamaato golaha deegaanku dhaqankaanu isugu yeedhaynaa waxa weeye tala guud oo waxa weeye tolka ah ayaa lagu gudbaya guud ahaan oo reer Puntland baa lagu gudbaya waxa weeye nin gaar wuxuu yeelanaya iyo nin waxa weeye gaar wuxuu doonaya iyo nin aanan qaban karin midna ma jiro ninkii isagu iswaala waxa weeye ishuyada midida aragta weey gacan bireenu ku qabanayna haddii markii hore la kala hamran jiray hadda la kala hamran maayo waayo nabadgelyada ah hawshaasna annaga la wareegnay dhaqankayagay u taallaa nin walba sidaa ku seexo nin walba sidaa ku cab nin walba sidaa ogow ciddii ka hor timaada waa cid dalkan iyo dadkan burburinaysa saas ma aha waxa weeye annaga cid naga sareysa miyaad garanaysaa soo annagu hawsha waxa weeye waliba Puntland waxa la yiraahdaa dhaqan bay ku dhisantay anuu haddan ku cusuba kawli anuu haddan ku cusuba laakiin marka meelaha la joogo la isxamanayo waxa la yiraahdaa war Puntland dhaqan bay ku dhisantay wareeriye dhaqanka yaqaanay anna tii umaan ku soo biirnay soo wax garatay ma markii horena kama aanan fogeyn oo dushu baanu ka ilaalinayna oo nabadgelyaanu kaga shaqeynayna haddana waxaan idin leenahay waa mar haddaynu isugu nimi xaajooyinku sidii hore waa ka duwanaanayaan hadal cad iyo go'aan adag baynu soo imaanaynaa ninkii waxa weeye ka hor yimaadana meel baynu uga soo wejinsanayna taa misla qaadan karnaa waxa weeye waxaan u malaynayaa waxaa la yidhi awrka hore iyo awrka dambe hoggaanka u dhexeeya baa annagu hoggaankii baanu waxaanu idin ballan qaadaynaa oo aynu caawa ku kala tegaynaa idinkuna inaad nabadgelyada ilaalisaan oo waxa weeye wax dhibaato dambe ayna dhicin annana waxa weeye laga yaqaanaa hawshaasi marka ay dhammaato intaanu isu yeedhno inaynu dhexdaa dhigno oo ka tashanno oo wixii reerku uu ku guurayo iyadoo la isku raacsan yahay looga gudbo ninkii ka hor yimaadana ama kursiga ku fadhiyo ama kursiga dambe ha fadhiyo ama ka dhaxaa fadhiyo gacan bir lagu qabto saasay noqonaysaa waxaan la isla ogeynaa cid ku dhaaqaysaa ma jirto madaxweynuhuna wax alla wuxuu naga diiday oo naga hor yimi ma jirto qof walba anu waxa weeye waxaanu cadeynaa qof walba wuxuu yiraahdo cadeynaa waxa weeye dad tolo baa leeyahay anu hadda waxaan aaminsanahay kuwa siyaasiyiinta ay hadii madaxweynaha la isu geeyo saacad ka yar inay isfahmayaan way xagga waxaanu ku soo aragnay iyo waxaanu siyaasiyiinta xasan shiray oo anagu saaxiibano macalinkayga waa hayaanu gaar soo wareysanay maba kala foga xoogaa dadkii waxa weeye humaag baa ku dhex jira hadeerna insha Allah waa la isu wada imaanayaa waxa weeye dhexda la isugu imaanayaa hareerahaynu ka fadhiisanaynaa tala guud baa lagu gudbayaa tala guud oo weyn baa lagu gudbayaa taana way isla qaadanay Soomaa aad iyo aad baan idin salaanay ee guddiguna ha maqleen waxa weeye hawsha ciddii ka hor timaada waa cid annaga nala dagaalantay waliba annaga hadda seefteedu waa kurusha iska ilaaliya waliba marka la isxamanayo waxaad oran jirteen war Puntland nimanka dhulbahantay markii la ismari waayay waliba especially Maxamuud Salaaman ismari waayeen nimanka dhulbahantay baa waxa weeye arinka ka hiiliyay oo waxa weeye dhisay baa tiraado soo saas ma aha waliba waxaad ugu tiraan 17 dhulbahantay xildhibaanada meesha maraan baa la maraa waxaad warba wardu waxa isma jiraan maanta kala cadaanaysa haddaan laga hor timaadaan waa la isgalayaa taana ogaada wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh